SID له تليه بالك عيدا بوليس له wax allaala wax ka xuseeya balonada la kala iibsanayay ninka awrtiisii iibsaday halkan intuu awaara kala yimid tobanka awr halkan intuu iibsaday ilaa jidka la igaga qaadaya daabshiil oo isii awaara ka qaadanaya wax allaala wax ka xuseeya ma jiraan muwaadinka wixii muaamaladiisa dakhliga inaynu gooni u saarno wixii wax kharibayana aynu gooni u saarno magaca xeerka sida xildhibaanada hore soo jeediyeen in la yiraahdo xeerka maydhaamista oo maydhista halkaa laga dhigo maydhaamista halkii maydhista loo bedelo maydhaamin taas waa taa gudoomiye xeerka markaa waxay soo jeedin lahaa sidaa lifaaqa ay guddidu soo jeedisay waa in la asxiyo وقالوا له هذا ما في ضع جحسنا كحلا بينها لقي كيني وضك جديد كشغلتها وإن قال يا سيد وتخيل توم هديت هي قدراسي وصل سكسينة وتوجد ومرتاك العقد وكميت شرعي الله صبر قدراسي بدن باتشلا وسير في الصباح لو بخيو وتوجع ومريس العقد كميت هل كيدتك الله بلشكرين لها قدراس قال لها بلو لين تاسو كميت تاسو وحيالا توجدا بكميتاي رق بالك استبلولو اسك dhistay maxaan ku raaday xayraa yaro shaqaalaha ama suuqa joogo intaas hatiya haysta xagu keenay awooyan qadaraas ma sharci darro ku qaatay oo loo qaraabay kiilay kuwaas oo kale weyn la soo qabtaa warcaadi wala baxay babadu waxa kale oo jirta hantii dawladda hadii ay tahay dhismayaal iyo hadii ay tahay dhulba oo la dhacay oo meertaan lacag lagu sameeyay oo aan ognahay ragba afar fooq iyo iska leh oo xayraana oo suuqa shaqaale dawladda ama xildhibaana ama qof caadi ah uga keenay waxa soo waxyaalaha xeerka qabanaya loo baahay ilaa iyo wasiiraad jiro xagga ka keenay lix bilood buu shaqeeyay saddex buu shaqeeyay afar fooq buu sameystay waa tuuga weey waa meertaanka lacagta shaqooyinka uu qabanay xeerku ay ka mid waxaan u baahanahay marka xeerkan waa in وأهم سؤال سيقول ما مرتاح العكس حير كان مكان وحيلا صلوا قولي هلا سحب الله يحيي وقبل سكني كانوا يقولون بعدين كقرنو عقابتي جودان شرعيانو دمارو والبحر كستو إن صار عقابتي سجون ورقصة ونقدرنا مركايان لا قدرين حير كوضك شرعية الدستور حير كلا البقرة حير عقابتي جودان على قتل يقول كيسا ما دام حير أي نقص وصار وجرانه وجيا حير نقص صدق ما يقص صدق نورها يا تحرك كلام بالله سلسلة كاسوا سلا وحكوسوا كبيني لعبت بحسته يسوع جلسته كما عطت توجو ودك الجديد سخط الله أبور كلام ودك الجديد وتقرن كان ودعي كلام وحنا كشة كنا وصفة شرعية العادة الصفة شرعية وطبعا وحنا سميس بك هو العادة بيرا أنا كل سميس بكرا مركز تبع يا أوراني واحد بحيوان كنترول بدون هذا ميل بيقول ولا صار دومته عقل معها أنا وحنا مسرعي حير كريم بدنا ويرهري اللي قرا كروجو فديا مركز وحي لقى بدله قلت له وحسوا شيء لا الحير كان الصحيح صح ورجع يا جودها ولا جودها كان ترى كان ستة جودها هذا يا سيسي هذا الكلام عدولي إلى يرعى وحل إلى هذا شرعية يعني شرعية قاك أنا هاي اللوير وأنا محكمة أهين وأنا بوليس أهين مقررسها واحد شري واحد أم سبان باشرة شرعية وحوي نقول حياة محكمة لها إيه ضدك أنت المحكمة اللي تجي ضدك أو سجن نقع وشرعية قوية حرفة لا شيء قوية هكذا واحد يلا وحوية واللفاق صور رعية حالكي مريض العكسة لهانتي أنا أقول لك الملك الأخير وصل قالها وصل والله يقبل يا هنتي لكن اسمه كان حالك الآن أخير
aad iyo aad baa horta aniga iga fiican yahay sidaa xildhibaan dulqaad iyo ciidamada kala sheegayaan horta maydhistu dee mara maaha anigu waxaa la sidaa qoladii hore sheegayso maydhaan ha laga dhigo maydhaan yani waxa weeye wax tuugo oo waa dhalangedi wax la dhalangedeeyo oo aad tuugo ahaayo laga dhigayo xalaal marka maydhistii maray u ekaanaysaa dhimaryala maydhaya ma jiraan maydhaankii tuugadii baa la maydhaamay waa maydhaan ha laga dhigo wax xaaraan oo xalaal laga dhigayo markaas marka anigu waxaa la qolada hore ku dhacsanayo waxa weeye xeerka maydhaanka lacagaha laga dhigo dashirinayo isla berriba waxaa laga dhigayaa caaqil ama sultaan dabeedna reerkii oo dhan wuxuu ka dhigayaa waxaan weligoodba dhaqankii hore ay hayshay intuu ka rabo buu dhaqan kale u bedelaya waxaa keenaya waa lacagaha tuugada ahe meel lagala yimi aan la garanayo ma garatay waxay saameyn ku yeelanaysaa lacagaha tuugada ahe dhaqankii siyaasaddii bulshadii dhinac walba way ku yeelanaysaa nimanka xeerkan iyo lifaaqan soo raaciya run ahaantii si fiican bay uga soo shaqeeyeen ma garatay waxa weeye waxaa la yidhi dadku way kala caqli badan yihiin dad baa indhaha quraanjada oo kale nimanka meeshan ku jira waa nimankii indhaha quraanjada u lahaa tuugta noocaasa ee waxaa ku shaqaysta anigu waxaan odhan lahaa arrinkan xeerka kan dadkeena wax badan buu u anfacayaa ha la soo dhoweeyo ha la ansixiyo ha la gudsaasaan u odhan lahaa asalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatu bal haddaba sida aan uga lug baxanno waxaasoo mashkalada aan isweydiino horta golay dhinacyo badan oo kale oo lacag ka yimaadaan way jirtaa oo shidaalada la baarayo iyo waxaa lagu dhaxiyo dadkaa dhulkaa lagu dilaya lacagba ayaa loo geeyaa laaya 10 laaya waxaasoo dhan waa arrimaan dee inoo yaalla aniga markaa waxayna tahay xeerkan iyo lifaaqan guddiga in lagu ansixiyo oo sidaa aan ku sii dayno ayayna anigay la muuqataa waana baasantii